maanta xafladan aadan ugu faraxsanahay runtii ujeedadeeduna waxay tahay in aan soo dhaweyno walaalkeen agaasime Sharmaarke Maxamed Warsame oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dib noogu soo celiyay asiga oo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda Ilaahaas aan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala runtii Soomaalidu waxay dhahaan macnaha alla dilaa dhinta waa war weyn macnaha warkaas war caqiido ku salaysan waaye waa war diin ku salaysan qofaan alla dilin ma dhimanayso ilaahayna qof kasta waqti u yeelay oo uusan kana hormaraynin kana dibdhacaynin qof kasta isku daydana inay waqtigaas qofka hormarisane ma awoodi karto qof kasta jacayl dartiisa inay uga dib dhigta rabtane ma awoodo marka runtii Ilaahay aa mahad iskale anigu waxaan ku jiray dadka ka sabray agaasima oo qalbiga xirtay oo caloosha xirtay oo kulley sagoontis kama nafweynida inaan Soomaalidu markay xaaladda arkaan qofka in xaaladiisa culus tahay waxay yiraahdaan hebel ama hebel kama nafweyni markay cabirayso macnaheedu waxa waaye qoosay joogtaa anigu waa dhima karaa laakiin ayadu waxa waaye xaaladeedu waa culus tahay anigu maalinta diyaaradda la saarayay waa sagootiyay waa u duceeyay waxaan islahaa kulley inaad isii arkaysiin ma muuqatee Ilaahay sabar ha kaa siiyo anaa isu tacsiiyey kaligay laakiin waxa xanuunka meeshii iyo dhibaatada iga keenaysa moogi inuu ii joogo waan rabay macnaha oo hadda ma dadejinayn waxaan u isiri war baashan waa dhamaatay tawakkal cala Allah ilaahay iska bari alxamdulillaah marka waa farxaday noo taa maanta runtii ma hadda ilaahay kadibne hadee man lam yashkur innaas lam yashkur illah waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda dhammaan shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo agaasimayaasheeda iyo kulli waxaan u mahad celinaynaa dadaalkii wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha guud ay geliyeen oo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha laftiisa iyo dadaalkii lagu bixiyay iyo sidoo ra'iisul wasaaruhu ula fahmay oo isla markiiba uga falceliyay oo u jawaabiyay iyo ehelkii iyo qaraabadii xildhibaanadii ay ugu horeeyaan mahad salaad iyo xildhibaan saabir iyo qoyskii meesha markuu joogay bacda xamdilaahi runtii Ilaahay mahadiisa kadib qarash aad u fara badan ku baxay caafimaadka Ilaahay bixiyay laakiin dadaalkii xoolo badan waxa geliyay ehelkii iyo qaraabadii iyo dawladda looma kala harin marka dhammaan inta ka qayb qaadatay waa uga mahad celinaynaa Ilaahay mahadaas iskale annagana waxaan Ilaahay uga mahad celinaynaa si gaar ah inuu asoo lafihiisi noo fiican yihiin oo libisan oo qurxan oo socda inuu Ilaahay dib noogu soo celiyay Ilaahay mahad la soo koobi karinaan u mahad celinaynaa Ilaahay mahadaas iskale alxamdulillaah rabbil caalamiin.